السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله waan salaamaya dhammaantiin meel kastoo dunida tacaalada ka joogtaan subax wanaagsan. Maanta waa jimce xaqiiqdii afar saaciyo meelaha in jimcaha la isku sii diyaariyo waayo marka waqti yar ayaan jeclaystay inaan ka hadlo hal caqabad oo dhalinyarada badi aan ku arko oo degdega dhanka FOMO ama fear of missing out oo kale waa psychological obstacle waa caqabad caqliyan ah qofka maanta waxaan rabaa tool loo isticmaalo si aad iskaga ilaaliso insha allah xaqiiqdii toolkaas tradifi waa ka helaysaan waa yacni soo practical oo inta tusaaya kadibna waxaa idin dirayaa exercise oo qof walba oo lacagaha uu ku sameyn doono haddii aad hore u fahansaneyd maasha allah dadaal ina aad badi u isticmaasho si mataqaana aad u aragto qiimaha meelaha uu taagan yahay inaad u fahanto horta casharka hore impact fiican ardayda feedback fiican ayaan ka helay arday badan ustaad ina iga hadlayso ustaad dhiirigelinta ustaad saas ustaad horta waa mahadsantiin idilkiin aad baan u jeclahay hadaba aniga in ka dhex hadlayo ardaydii aad iyo aad u saameynayo muhiimad waa inaan hore u socono insha allah bidnillaahi kariim anigu waxaan ka hagranayaa mid kasta ujeedaan marka adigu has hagranin aroortii kac samee waxaad rabto inaad samayso that's it relapse waa dhacaya bini aadam baa leeyahay caadooyin xun oo iska dayn rabtay baad mararka qaar ku dhacaysaa caadooyinkaasna waxaa loo baahan yahay inaad kaga gudubto mahadnaq waxyaabaha caadooyinka xun markaad samayso oo qofka bini aadamka uu si fudud ugu dhaco waxaa ka mid ah misriga ama dhibaato badan inuu naftiisa u geysto inuu iscanaanto inuu iskaraahiyeysto inuu is-inkaaro inuu isnaclado inuu u haystoba inuu mataqaanaa qiyaamihii kusoo dhacay war adigu malaa'ig ma tiidniyo nin ragaa tahay haddii dembi kaa dhaco alle subxaana watacaala dhankiisu laabo dembi dhaaf weydiiso kadibna hore uga sii soco malaa'ig ma tiid ka masaajidka tujinaya imaamka ayaa dembiye ka dhaca ka macalin dugsiga ayaa dembiye ka dhaca ha arka kale cimaamadan iyo macawistan iyo khamiiskan uu wato hasdiin waa malaa'ig meeshan ma joogaan bini aadan baa uu joogaa bini aadamkuna waa khataa'uun waa inuu khaldannaa laakiin iska ilaaliya haddii khalad yar uu kaa dhaco gratitude ugu gudub mahadnaq ugu gudub adoo ilaaha mahadina u shukrinaya kadibna dembi dhaaf weydiin haddaad u fiirso shaydaanku waxyaabaha uu kuu geynayo caadooyinka inaad samayso joogtay suu ku laalaabato wuxuu rabaa inaad alle mataqaanaa ka furato ka furashada allena waa maxay inaad naftaada intaa nacdo oo dhahdo ilaahay ima dembi dhaafi doono ama caadadan markasta waan kusoo noqdaa ilaahay waa kaa warhaya caqliyad wuxuu ku siiyey waxay doonto ku fakari karta caqliyadan ama niyadaha waxaan ku hayana keligaa dadkii dhibta ku qahaysay ma ahayn asxaabtii oo ka agdhowaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa aad u dhibi jirtay thoughtska negativeka oo u imaan jiray nabiga markasta oo nabiga markaan salaada xirano tashuush baan ugu furan markaynu howl qabanayno tashuush baan ugu furan maalmaha kamid tashuush baan waa is a part of the process boys and girls waa waxa kamid ah nolosha bini aadam caqliyada wondermind iska wareegaysa marka waxa u baahan inaad jeysid marka casharkan kaga hadlaynana maxay nidhi waa inaad minimize samaysid negative-ka si aad maximize u samaysid minimize waa maxay yaree war iskama wada joojin karno oo malaa'ig ma nihin okay laakiin waa inaad yaraysid marka hal negative kaa dhaco waa inaad 10 scale-ka ee positive aad samayso si aad track ugu soo laabto okay haddii 2 negative kaa dhacaan waa in 12 positive aad samayn karto haddii 5 negative kaa dhacaan waa inaad samayn karto 15 positive inaad samayn waa sidaa insha allah marka dhalinyaro badan waxaa arkaysaa dhahayo markay khalad galaan ama caadadii wanaagsaneed ee dhisayeen oo disciplineka uu ka kala halaawo dhahaya ilaahay guul iguma talagelin self talk oo negative iskula hadlo waan dareensanahay oo waxyaabaha halista ku ah caqliyadeena gratitude ugu gudub dhib male malaa'ig ma tihid there is no perfect orto halkan qof perfectionist maba joogaba okay niyadaada waa inaad sidaa ka dhaadhiciso adduunkan maanta kan xajka tujinaya perfect maaha ha u moodin inuu qof kale ka fudud badan yahay excellence yaa jiro laakiin perfect ilaahay baa subxaana watacaala
waan diinteena islaamka waxay sheegaysaa islaam iimaan iyo ixsaan. ixsaankaas cid dhaafi karta male oo perfect noqon karto. ixsaankaasuu biniaadamku eegaya excellence, inuu sida ugu fiican u cibaadaysan karo, inuu sida ugu fiican caado u samayn karo, laakiin marar qaar khalad waa galaya. marka sidaas waa inaan caqliyadiino kala dhisaa. haddaan ka gudbo intaas oo ah inaan aad uga hadlo oo aad iska ilaalisaan inaad naftiina calaamataan oo isnacdaan oo iskaraahiyeystaan oo isnacladaan oo isdhibtaan oo iscaydaan, caqliyadiina sidaa uma fiicin. Three zonesku waa muhiim. haddaan cashir kusoo laabano, horta toolkan waxaa la dhahaa, halkan ayaad kala soo baxaysaan gunbox ayaa la dhahaa. aad iyo aad buu idin anfacaya. sida hadda halkan aniga gunbox ayaa la dhahaa. toolkan ayaa mataqaanaa aad iyo aad u isticmaalaynaa si aynu uga xaqiijino zoneska la joogo. sababta keenta waxa waye trade shalay yar Instagramka igu soo diray ayaan aad aniga ahaanta u dhibsaday. trade wuxuu ahaa invalid ah. invalid waa maxay? yani aan isdhamaystirin, laakiin asaga agtiisa wax ka noqoto valid. structureka meesha la taagan yahay, zonka la taagan yahay, ani aad iyo aad waxaan istahay waa meesha ugu baahneed in samarka in la geliyo ayay ila eg. lacagtan waa lacag aynu soo qaadan, waa og 7 beri baynu haynaa. jimce ayaanu soo qaadana, jimce ayaynu iska xirnaa. haddaan toolkan soo qaato, waa kan halkan iyaal hoosta oo ujeedaan, halkan keensado oo aan soo qaato oo dhaho sidan. okay, halkan kaga soo qabto, kalaradan ayuu soo baxayaa, guduud, orange iyo cagaar. aniga kalarka waa ii zaa'id sababtoo ah screenkayga shaashadda dhalo weyn bay agtaan. dhaladaas waxaan ka dhigay bright dhan ma isticmaalo, brightkeeda dhan waa 10 ayaan ka dhigtay. sababto waxa waaye soomaalida haddii dhala aad isticmaalaysaa weyn oo computer ah, waa inaad brightka aad u yaraysato because indhaheena aad inaan uga taxatirno. waxyaabaha fatigue laga qaado, mental fatigue, daal ahaan laga qaado waa brightkani waa iga dhintay. that means bright ma isticmaalay. shaashadayda dhan waa madow waaye, fideoyada madow ku daawadaa. haddaan YouTube daawanaa madow, haddaan shaashadeed waa ii madow. that means indhahayga marka waa ii safe waaye. marka cagaarka waxaa aad iyo aad loo isticmaalaa marka halkan markuu priceka taagan yahay. waxyaabaha aynu ka hadalno area value waa meelaha 15 minutes flagska kasoo qaadan karno, risk entry kasoo qaadan karno waaye cagaarka. okay, so inkastoo maalinta hore falaagan markuu halkan qiimaha yimid, sababta correctionka weyn u gashay waxa waaye meel dadku nagaga rayi duwanee waaye halkan, oo that means dagaal aad iyo aad u culus baa ka dhacay. dad badan oo qiimaha bay u rajeynayo meeshan sugaya trendlineka ayaa aad iyo aad selleskii hore lacag diiday inay ka baxaan, oo dagaalka ugu dambeyna dadkii halkan kaga soo guuleystay baynu selleska belief systemkoodu shaqeeyey oo qiimihii halkan kasoo riday. that means marka lacagtan corrective waxba la isku reebay buu halka ka galay, dagaal inaba caadi ahayn lagu hobtay. ugu dambeyna beerishka ayaa aad iyo aad u guuleystay lacagta inay dhulka soo geliyaan. haddaba meeshan halka la taagan waxaa loo yaqaanaa waa orange zone. xaqiiqdii magacyo badan ku soo aroora marabo macne ma sameynayso. halkan waxaa loo yaqaan the danger zone. waa meelaha take profitka dadka ka baxay. marka psychology ayaa ka dambeeya. waa meel dadkii yani faa'iidada ka xirayaan, sellerskii faa'iidada way xirayaan. that means qiimihii marka faa'iida la xirayo waa dareemaysaa wuxuu noqonayaa daba iska galaya rafasho iska galaya, dareemaysaa jab. marka xariifka halkan markuu qiimihii marayo saan iskala laabana 15 minute flag ay ka raadinaya waa invalid setup, waa khatar. meelahan waa meelahaynu rabin inaynu tradeyadan ugu badan ka qaadano. this marka valid goormu noqonayo oo markii aad samarkii geliso oo aad sugto qiimihii in uu structure weyn is siiyo 4 hour flag oo kale inuu is siiyo inaad samarkii geliso. this is the probability setups waa kuwan u baahana inaynu joogtayno. labadan meel waynu ka qaadan karnaa sida abyadeen oo dhan. marka inaynu habka joogtayno ayaa aad iyo aad u fiican insha Allah.
sorry koob aan shubanahay and marka halkaas waynu isu fahanaa malaynayaa zoneskaas waaye waxaynu rabnaa inaynu joogtayno waaye marka xariifka cusub oo halkan 15 minutes flaagka u gaasanayo absolutely waa khaldanta so meeshan oo kale maxaynu xal ku helin xalka ku helin waa loo waa in la jiro waa inay bilaabato bearish momentum waa inaynu aragno dominancy-ga guusha weli inuu bearish ku raacsan so of course haddii loogan lasoo jabsado haddana way bilaabanaysaa isla meeshii green zonki red zonki iyo waxa ku bilaabanaya orange zonki isla sidii ayay saa u soconaysaa so on ilaa ooda laskala baxo marka sidaas waaye marka halkan oo kale haddii 15 minutes flag 1 hour flag okay no problem zonku wuu soo jiira that means biaska marka halkan buyga iyo ma u tahay this area value waaye sita ka dambayso dad bay mataqaanaa u tahay support level oo kaaga soo fikrajeysan kara so dadkii haddii aad qursisaan oo aad soo jabsataan idinku kacaya kooxa candufada dib loo qaya idinka laga yaabaa inay idinla rayin noqdaan tradingkana solo baad laba qof iska soo jeedo waa walaaliyaal buy and sell markasta hirdimaya so kii mataqaanaa dominance noqonayo awood yeelana waa kii awooda price kaas ku awood badan okay trading kan waa inta walaaliyaal so it only takes one person meel kastoo dunida ha jooga inuu kaaga rayi doonaado fikirkaaga marka insha Allah billah kariim marka settingka ayaa rabaa inaan la wadaago si aad u isticmaashaan settingka horta magacana waa bedelan kartaa aniga hadda trizo gamboxka Soomaaliya magaca halka oo ku qori kartaa it doesn't ma baahnid inaad ku qortid waxba gamboxka ha ku aado laakiin settingkiisu waa kan nambarada koow kan fur kuwan iska xir haddii kugu furan yihiin xir kan xir ma baahan saddexdana waxa furanaysaa kan 0 ka dhig marka 1 kan 0.33 kan 0.66 ayaa ka dhigaysaa kadib colorka halkan backgroundkiisa daarto tikhwa ka dhigan kartaa sideeda daarto ta xoogaa reduce ku samee it's no problem sideeda oo kale saas reduce okay reduce ayaa ku samee kartaa waa intaas okay baad taabanaysaa ku save gareemo markuu ku save gareesmo kulli halkan top levels ka bottom levels ka tick saar haddii ku saaran angles ka tick saar hadhow okay baad dhaysaa okay markuu dhankaas ayaa waxa waaye waxa ku soo tirsanaysaa tools kan oo markastoo lacag zone ay taagan tahay sida tan oo kale tan waa taqaanaa dailigeeda dee fiirno meeshay taagneed zone ayay taagan tahay inaa calaamadaada la soo kala baxdo oo aad dhigato dhahdo okay zonka waa risk entry halka wasaa walaalkay walaashay haddaad isticmaashaan toolkan aad iyo aad baa dhow kaga fududan doonaa inaad mataqaanaa aydan ku kadsoomin zoneska because of people nasiinada weyn marka psychology ka dambeeyo ustaad cagaar kan waa fahanay waa meel dominance laga rayo duwan yahay kanna waa meelba already dadkii ay ka qaayaan inay fursad dhaafto si degdeg inay kusoo galaan lacagtina sababaysa in dhaqso soo dhaqaaqdo tan dhexe waxa waaye personally lacagtii dadka qaar baa sida aniga oo kale maalinta hore take profit kayso meelaha ma ahayn sidaas oo kale qiimaha markuu take profit dhaco walaalayaal wuxuu sameeyaa correction ayuu galaya nasiino markuu galo qiimaha wuxuu iska noqonayaa wax loo yaqaano equilibrium oo ah inuu iska nasto rafasho iska galo so nasiinada it take time inta fursad kale anigoo kale hadda banaanka ka taaganayo maxaa adiga u galowsaa marka sababtoo marka halkan oo kale maynu ka eegayno walaalayaal 1 hour flag oo kale may minimum 3 touch oo kale flagyada ah inaan hadda yarka markii intrigiiseen dib u milicsano wuxuu sameeyay haddeen dib u milicsano inuu colorkan iska leexno intrigiis muxuu sameeyay yarkan meeshan eeg yani cidna ma charge gareynayo waa saxanta iyo khaldanta meesha ma taalo waxa laga yaabaa flagga hadda dhuuban oo meesha yaal inuu usoo dhaqaaqi karay haddii loo baahdo okay yarka marka sidaa ayuu ahaa flaggan he was looking at this flag okay good
balaagas ayuu fiirinaya ilaa ay taabashada. Okay, hoostana waa iska taqaaniin. So muxuu sameeyey very quick ayaa yarkaan 1% oo quick loss ayuu la kulmay xaqiiqdii sidaas ayuu so entries halkan buu ahaa. So muxuu sameeyey balaaga short position ku soo qaatay wuxuu u dhigtay sell stopkiis saa ujeedaan lacagtan hadda waa lacag cajiib iska badhay 26 pip ama 26 pip. So muxuu rabay inuu TB-ga ilaa halkaa. Okay, risk and reward ratio okay 1:7. Okay, marka 1:7 is good, laakiin maxaa lagu sameeyey very quick oo bariiska loo la siino xoogaa la soo dhaqaaqay boom isla markaa laga dhacay selkiis. Hadaad mararka qaar is good. Marka dadku wax sameynayaan markaan oo kale marka la cusub yahay oo SL-ka lagaaga sii dhaco haddana aragto price-ki inuu soo ina haddana soo daba ordo price-ki interka qaadana lagu laabto lagu dilo waxyaabo ka xanuun badan waxaas chasing the tails ayaa loo yaqaan inaad suuqa iska ciirsato adigoona wax entry aad u jeedin. Akhlaaqda waa muhiim walaalayaal. Marka lacagtaas yarka hadda wuxuu khaldan male experience u baa u kordhay. Marka hadda kadib maxay sameynaa hadda forward-ka dantan you just wait like I'm waiting sida aan u sugaa u sug halkan dhigo horizontal line-kaaga saas dhaho arag lacagta maxay sameynaysaa kasii fakar maxay sameynaysaa lacagtan weli ma istiyaarinaysaa hadda hadday saan soo samayso oo laabato oo 3 touchna siiso oo trail line-na siiso maybe marka lacagta inaynu si qurux badan anoo xaqiijinayno taabashooyinka iyo waxyaabaha ay samaysanayso xaqiijinayno inaynu kaga soo faa'iidayso. Marka it is what it is process inaynu iska ilaalino waa markaa lacagaha inta dejinayno wax degdeg la halka ma jiro. As a matter of fact adiga kaale financial plan waa inaad leedahay degdega waxa keenaya qofka inuusan jihaysnayn maxaa ku xisaabtamaysaa bishii waa inaad bishii ku xisaabtamaysaa 15% haddii aad 50% ku xisaabtamayso bishii it's good waa inaad dejin waxbo haddaad 20% bishii ku xisaabtamayso it's up to you 10% though it's up to you like financial plan is very important boys and girls waxa adigu ku jihaynaya waa financial plan qofku waa inuu leeyahay financial plan sida trading plan u leedahay ganacsigan haddana dhaqaalihii aad ku xisaabtamaysay 12 bilood kadib dhaqaalaha qabsa waa inuu ku qorshaysan yahay 6 bilood kadib intaas 30,000 40,000 20,000 whatever adigu marka akoonka ku bilaa waa inuu qorshe aad u dejiso. Okay, qorshe waa inaad u dejiso bishii 1,500 2,000 markaa degdeg ma jiraayo waxa la cilaa laakiin inta nagu jirto quick rich scheme oo ah inaa maalintii lagu qabto 50,000 100,000 lagu qabana ma jirto halkan. taas ayaa keenta qofku inuu defiyeed ku sameeyo inuu qorshe raacin trade plan raacin inuu financial plan raacin uu jug meeshaada joog ku jiro midaa kuu sheegay hadda inaad go'aan qaadatid oo financial plan aad dejisato oo aad habaysato calculated soo qaadato inta macquulka akoonka kontonka kuna waxa macquula bishii inuu 1,500 aan dhahay inuu soo xareysan karo bishii 5,000 ayaa macquul ah. akoonka 10,000 waxa macquul bishii inuu soo xareysan karo 1,500 waa macquul ah. Okay, and it's enough for 10%. Very boys and girls حتى haddii 2,000 3,000 suuqan ma la saadaalin kara faa'iido waa badan kara bishii 5,000 baa laga yaabaa 1,500 inaad 3 ku soo xareyso it's good laakiin waxa loo baahan yahay realistic goals inaad leedahay. marka degdeg uu ka yaraanaya setup-yada qasabto ka yaraanaya laakiin waxa ku dejinaya qorshe la'aanta hadda markii inaad go'aan qaadato ama inaad soo baraarugto 5 sano kadib adoo rafaaday adoo daalay okay marka walaalayaal qorshahaas dejista khayr Allah siiyo waan salaamayaa hadda intisaad u shilayso 4 sano kadib 3 sano kadib war hadda fiiri 12 bilood ayaa consistency joogteyntiisa waa in 6 okay waa in hadda go'aanka qaadataa walaalayaal go'aanka hadda qaado meesha 5 sano soo baraarugday 4 sano iyo rafaad iyo qabac ku jirleed anigu ku sheegay doqon hadda tahay
shantaada sano iyo afartaada sano kasoo baro khibrad laakiin haddaa free tahay aniga maqal waxaan kuu sheegaa qaado aniga khaladaadka soo galay cashar ka baro ha noqonin qof aanan jihaysnin noqon qof jihaysan insha allah noqon qof jihaysan kunka fariidka dadka kale khaladaadkooda ka bartaa cashar okay marka saas sameeya insha allah hadda dejiso 12 bilood kadib akoonkana qaadanaya dhakoto 12 bilood kadib lacag intaas ku xisaabtama 12 bilood kadib wax ku xisaabtama $100,000 ku xisaabtama karta haddaa akhlaaq leedahay laakiin hal maalin ma ku samayn kartid $100,000 qalbi kuma samayn kartid that's been one marka akhlaaqdaas waa inaad dejisato walaalayaal waa inaad ku socoto waa inaad compounding interest calculator jiro raadi ku qor Google okay Google masuk ka tanaan tusaale kasta waxa in baro okay calculator kan waa compound interest financing-gaaga horta aqoon maanta waxaan idin baraa fiiriya iskuulada isma baro runta idin sheegaya waa aqoon fiican waa inaad compound interest hadda tusaale akoon ka tokunartaa inaad ku trade kariso ama qof familka ka qaad ama umadan la gadgado maanta horta wax waaye fursado fiican baa iska jira 50,000 baa haysata ama 100,000 50,000 ka bilow minimum 50k eeg marka wax aqli galayna ku xisaabtamina ma ogta bishii ba iska 10% sanadka meeqo noqona marka 120 soma 120% noqona okay 12 bilood okay labadaba daily 365 haddaan calculate doo eeg waa inuu iisoo saaro xisaab saxan oo aan ku socon karo laakiin dhibtan najaasato waa maxay markii milyan akoon ku korin waxaa jirta dhalinyaro badan Soomaali lacag way sameynayaan laakiin lacagtu soo qaadan way isticmaalayaan wuxuu ku leeyahay baahi baan haysta hadda baahidii Soomaa ahayn horto ilaa 12 bilood marka hore hadafkaaga gaadho kadibna baahida aad u baahan tahay 12 bilood marka aad ku qorto baahidaadaas aad dabarto insha Allah hadduu guri yahay guriga marka hadduu gaadiid yahay gaadiidka marka hadduu business kale yahay business laakiin marka hore inaad ayada raadiso okay inaad ayada raadiso okay sidaan noo soo saaray 50,000 sidaan noo soo saaray 115,000 ba akoonka ku kordhaya 12 bilood kadib sidoo shaqeynaa wax kala ma bil kasta wax macquul bisha koowaad 5,000 iyo 200 kadib 5,000 ku dad marka wixii upward interest-ga adiga muhiim ka saaraysa lacagtaada inaad ku haddii aad company-gaada ku aaminayaan company-ga kala soo bax company-ga bankiga ku shubo hatta haddii wax cunaysid waxyaabaha dhaadheer la bax haddii aad waxyaabaha ay ku tartaag shidaal baa rabaa kiraan rabaa waxyaabaha dhaadheer bil kasta la bax sida 500 baa dheeraan karta 400 baa dheeraan karta $50 baa dheeraan karta 200 baa dheeraan karta 300 baa dheeraan karta waxyaabaha dhaadheer oo kale xisaabaha dhaadheer oo kale wax yar kala baxbax haddii aad 41,000 oo kale 200 kala bax oo kale meeqa waa marka fiir 115,000 akhlaaqan sameys kadib maxaa sameeysaa 12 bilood waxaad diyaarinaysaa rewards waxa loo haddii hadafkaaga gaadho hadiyadaha marka ku qorshaysan inaad sameyso hadiyadaha muxuu noqon karaa gaadiid hataa u baahan tahay alaab aad ku shaqeyso waxyaabahan hawriyaal waa rewardkay ka mid ahaayeen because waa u baahnaa inaan ku shaqeeyo because ganacsigaasi wuxuu ugu yeesho
waxaan waa tartan baa lagu jiraa qof kasta shaashad wuxuu baahan weyn wuxuu baahan kombiyuutaro fiican fasta wuxuu baahan waxyaabo badan ba u baahan tahay inaad qorto waa wax kastoo riwaadka haddii dalxiis yahay xataa dalxiiska qor riwaadska marka maxaa waaye 12 bilood kadib buuggaaga hortaada iyaal kana kuu soo hara warqadan waa warqada kaa ilaalin doonto inaad degdeg ku samayso at the end of the day waxa ku xisaabtamaysaa waa plan screenshot ka qaado soo taawac markaa soo daabacato darbigaaga hore ku dhajiso intaa la qabsanayso waxaan qorshaheeda intaa ma garan weyda maanta waa financial plan baa la dhahaa wax marka maxaa waaye caqliyadaada ma dadejinaysid processkana aamintay waxaan waa process war maanta xisaabtan baa fahmi laadiin haddii 5 kun lagu daro 5 kun lagu daro waa 12 kun يعني waxay noqonaysaa haddii 5200 farsiga lagu daro 5800 lagu daro waxay noqonaysaa 12 miyaa fahmi weydeen miyaa maamuliyin baa aragteen xisaab iskhalato isxaab yani xisaabta ma khaldami karto systemka iyo process ma khaldami karo qofka khaldami karo horta sidaa waa inaad fahmi adiga khaldami karo oo diidi karo in xisaabtan iska tusto laakiin waxaan waxa soo tijaabi ilaahay ambiyadii ilaahay nabiyadii waa barako waa ganacsi wuu kordhaa wuu socdaa laakiin aawi maskaxda waqti siin lahayd maskaxda sidaa fahmi lahayd maskax lacag aaminsan ma jirto maskax lacag inay kordha ma aaminsanin lacagtii waxaa ka aaminsantiin evil waxaa ka aaminsantiin wax xun waxaa ka aaminsantiin waxyaabo kale ma u aaminsanin lacagtan waa neutral tool waa agab loo isticmaali karo xorriyad ku siin karto wixii jirkaaga u baahan yahay wixii caqligaaga u baahan yahay wixii u baahan yahay naftaada u baahanta inaad ku samaysan karto lacagta saas waa ma u aaminsanin hadii shaqada tahay maanta qani noqoto oo u baahan tahay naftaada isku filaashana gartaa maanta u baahan jirkaaga u baahan kow jirkaaga muxuu u baahan yahay meel fiican ku dinkigsatid dhar qurux badan xiratid cunno fiican cuntid lacagtii baa u baahana lacagtii wax kastoo muhiim ayadaa xukunto ujeedaa ayaa caqligaa muxuu u baahan yahay buug maanta daa dhahdo waa $10 waa lacag waa caqliyada ku dhisi lahayd cunooyin fiican caqliga u baahan baa jira waa lacag eeg marka naftaadu maxay u baahan tahay kasbashada jacaylka u baahan tahay duco u baahan tahay sadaqada sidoo kale naftaadu u baahan tahay maanta waxa ku waa lacag marka lacag maxaa u nacaysiin lacagta saas u baahan tahay iskama sameeyo samir u baahan tahay qorshe u baahan tahay maanta waxaan ku dhaaran karaa inta daawanaysa inay tan lahayn wixii halka la soo fadhiyaan rajo ku leeyna lacag qorshe u baahan yahay lacag la sameeyna kulli hal maalin rabnaa 20 hal maalin haddaa focuska saarto maaliyuun waxa guboosaa 5 kuna kaa gubane 7 kuna guboosaa adile wax adigi 20 kun sameyn lahaa waxaan 12 bilood kadib markaad fiiriso waxa kaa maqan lacag gaaraysa 15 kun ama waxa kaa maqan lacag gaarayso 20 kun baa kaa maqan laakiin haddaa samarka iyo akhlaaqdan aan ku dhigayo waa caqliyadda ku salaysan samaysan lahayd 12 bilood adaa waxaa ku sugnaan lahayd xaalad fiican xaalad lama hadiyo marka kan screenshot ka qaad screenshot si loo qaado ana waxa isticmaalaa hadda Mozilla adaa isticmaalayso screenshot si fudud marka saa ku dhufato text screenshot aad dhaysaa meesha aad rabto waa kaga dhufanaysaa saan ayaad markaa u dooranaysaa kadib copy ayaa dhaysaa ama download labadaba waa dhici kartaa marka sidaas warqada u soo dejisa waxaa aadaysaa meelaha bookshopka waxaa leedahay color iyo print garaysaa colorka lagu print garaynaa waa soo qaadaysaa ana waxaan leeyahay book oo trade planki iyo waxyaabo badan igu jiraan bashqada wax la geliyo waxa la siiyaa u maleynayaa $3 waaga laga siiyaan gatay bashqada yacni daloolka loo sameeyo warqada dalool u sameeysa bashqadaas ay gelaysaa waxa marka trade planka fiirinayso hadafka fiirinayso ayadana waa fiirinaysaa si aad wax soo saarto bishii intaas in muhiimadda ay ku ahayd waxa laga yaabaa lacagta fiiri 5 kun inaad ku samayso asbuuc inaad ku samayso 2 asbuuc gudahood qasab ahayn inaad ku samayso bil laakiin hadda inta waxaad xasuusinaysaa hadafkii inaad gaadhay bishaas laakiin aad sii joogtaysa inaad wax sii samaysid laga yaabaa xisaabtan 115 kun inay ku soo baxdo 215 kun I don't know
لكن ويعني profit في عم بقى سمين مرة profit لكن at the end of the day compound interest هو سدا ولا لا مرة ساسا وسمين ساسا لعقد وجد وكل لسه because SL كي أيا كرداي وح كرداي هذانا وح كرداي lot size كي أيا كرداي مركز شوكم بالعيارة مركز نتمكن واي because سيدين بلود أكون كون قري هذه 1% risk كرينا وكوريسا مركز experience اسكو كوريسا اسكو داي وعن إن شاء الله خير بدأ درجنا قرشياش على سمست إن شاء الله أفضل منكم financial plan لا يمادو لعقت أكون كفرنا ذو إيمان إسها لكن ملي financial plan أكون رأينا فرطو أكون قد فرطو محاسب ما نسوي سؤالش مشتا واسكتر الجرينا أو محاول كتر الجرينا استجابنا في صومالي معه وأنا ده العقد سمينا العقد نخش بانت قرشينا تستوى قرشينا مركها دقائق ترتاح ممكن إن شاء الله خير بدنا نرجعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعونا.